innaga waxa dhici karta maanta madaxweynaha tagaya midaad rabtay baa la dooran waayaya ummadan baa xanaaqaysa khalaas haddii hebel soo bixi waayo waxba ma jiraan rajadeenu hebel kuma xidhna sideedaba waxyaabaha khaladka wax weeye in aadan rajadaada qof ku xidhan qofku waa dhiman karaa waa jiran karaa waxbuu qaban waayi karaa inaga waxa la rabaa mabaadi inaan ka duulayno oo nahay dad mabaadi ku xidhan ee aan shakhsiyaad ku xidhnay markasta Soomaaliya hadda markasta oo la kala guulaysto qayb baa fulaacda qof waad u xanaaqaysaa sax baa arrinkaasi naga waxa rabnaa fikirkeeni iyo wixii aan rabnay qofkani ma ku shaqeynaya walaw yuuba ahaan kii aan doonaynay waa waxyaabaha la rabo inuu qofku maaragtay uu ogaado waxa la yiraahdaa badda kalluun badan soo daadisay dabadeetana markii kalluunkii dibadda u soo dhacay ayaa nin badda ag taagnaa wuxuu qabtay inuu hadba xabad kalluun oo nool badda ku tuuro wixii tabartiisa nin baa ku qayliyay wuxuu yiri war maxaad adigu ka tari karaysaa intaasoo kalluun oo dibadda yimi dabadeetana intuu mid qaaday buu yiri tanay wax u taraysaa ilaa inta haddaan badda ku celiyo waa noolaanaysaa saadarteed culimada fuqahadu waxay yiraahdaan inna al-maysura la yasqutu 'an al-ma'sur wixii aad qaban kartid kaaga dhici mayso wixii aadan qaban karin haddii dawlad Soomaaliya la waayo kaba soo qaad Soomaaliya ay dawlad yeelan weydo ma waxaad oranaysaa dawlad Soomaaliyeed bal waayo anigu waxba qaban maayo dawlad Soomaaliyeed mar haddaan jirin waxba qaban maayo maya waxaad qaban kartid baa la rabaa in la qabto waxa aan tusaale u soo qaadanayaa qiso aan habeen dhaweyd hoolkan ka sheegay oo ka dhacday dalka Ciraaq waqooyiga Ciraaq ayaa nin dhalinyaro ahi waxa uu ka baranayay culumta shariicada islaamka 10 sanadood goortii uu baranayay sheekhiisu wuxuu ku xisaabtamayay inuu noqdo ninka bedeli doona ninkan dadaalkiisa iyo fahamkiisa hase yeeshee nicmo waliba nuqsaan leh wiilkani wuxuu ahaa wiil cayna oo aan heli karin nolol maalmeedkiisa rasmiga maalin maalmaha kamid ah oo aad u kulul isagoo aan quraacan ayuu soo dhaadhacay dabadeetana haddii uu yimi suuqyadii wax lagu gadaayay waxaan samaynayaa tarjuma macnawiya wax la yiraahdo markuu magaaladii yimi wuxuu u baahday quraacdii waxay noqotay matalan 10 senti ka soo qaad waxa ugu yaraan maanta isticmaalno 1 senti bay noqotay ama waxay noqotay 10 senti waxaan leenahay ninkaasi wuxuu haystaa 15 senti quraacdii wax la yiri quraacda iyo iidaankeedu waa 20 senti kabacdina ninkii gadaayay ayuu wuxuu ku yiri waxaan rabaa in shantayda dhiman aad igu darto waxa dhici karta maalin maalmaha kamida inaan mas'alo uu ku faa'iideeyo oo wuxuu cilmiga adiga faa'iidid iga si 15 senti quraacda iga si ninkii wuxuu ku yiri cilmiga 10 sanadood aad baranaysay oo maanta 5 senti ku goyn waayay orodoo dhulka ku shubadeer aniga waxba i tari maaye igala tagka ninkii hadalkii saameyn buu ku yeeshay waana nuxurka aan doonayno inaynu fahamno hadalkii saameyn buu ku yeeshay wuxuu go'aansaday inuu shaqaysto waxbarashadii iyo amalkii uu qabay isaga iyo sheekhiisu bay ahaayeen inuu noqdo tiirarka magaalada kuwa ugu muhiimsan ee sheekhan bedelaya ayuu meesha ka saaray xamaal iyo nolol maalmeed raadin ayuu u dhaqaaqay dabadeedna maaha xamaalku ceeb laakiin waxa uu raadinayay baa ahaa wax weyn nolol raadin markuu dhaqaaqo casharadii uu ka hadhay sheekhiisii wuxuu dareemay mushkiladda ninka ku dhacday kabacdina waa soo raadiyay wuu u waramay wuxuu dhiibay fargashi ka samaysan macadinta qaaliga ah macadinaha qaaliga ah fargashi ka samaysan ayuu dhiibay wuxuu yiri fargashiga qaado gado dabadeedna isu keenkeen fargashigii buu wuxuu la aaday meelaha lagu gado waxyaabaha dahabka iyo macdanaha qaaliga ah lagu gado ninkii ka gadan lahaa waxa uu qariibsaday wiilkan cayrka ahi fargashigan aad ka qiimaha badan leh inuu isagu leeyahay waxa uu yiri cidii ku soo dhiibtay iijay sheekh hebel baa hadiyadii siiyay isagaale inoo sheekh buu yiri sheekhi baa loo yimi sheekhi wuxuu sheegay inuu siiyay qiimo fiican buu ka siiyay wiilkii markuu iska kala degay oo uu xasilay ayuu u yimi sheekhi wuxuu yiri su'aal baan ku weydiinaya wixii aan ku siiyay fargashigii qiimaha badnaa meel maad ka gaday marka wuxuu yiri waxa aan ka gaday meelii dahabka iyo macdanaha qaaliga lagu gadaayay
wuxuu maxaad u deen weyday meelii quraacda lagu iibinayay teetana waxay jirtaa kuwaas miyay qiyaasi karaan iyagu miyay waxaan qiimihiisa garan karaan wuxuu yidhi marka waxay tahay nuxurkaygu haddii aanu ninka quraacda gadayee hodheellaa ee aanu garan karin qiimaha dahabka haddii aanu garan karin iyo qiimaha macdanaha qaaliga ah sidee baad raalli ugu noqotay inuu adiga naftaada qiimaheedii kuu sheego waa la yaab soo maaha wuxuu yidhi anigu waxaan kuu siinayay waxaan garanayay naftaada qiimaheeda haddana warkaan kuu sheegayaa wax weeye qof aan ku aqooni naftaada qiimaheeda yuu kuu sheegay maanta dhallinyarada waxyaabaha badan ee soo wajahaya waxaa ka mid a kuwii jaamacadaha ka soo baxay gidaaraday fadhfadhiyaan maxaad wax u baranaysaa waxaa wax loo baranayaa ma aha in cunto lagu helo waa khalad ka soo bilowda ilmaha marka iskuulka la geeyo waalidiintu ku yidhaahdaan haddaadan maskaxda ka dhididin dhabarkaad ka dhididaysaa waxaa wax loo baranayaa in cunto lagu helo maaha haddii waxa macno tiraya waxbarashadeeniiba in wax loogu cuno baa wax loo bartay dee waa lagu heli ama waa lagu waayey ila risqa ilaahay baa qoray qofku wuxuu wax u baranayaa inuu mujtamacan wax ka bedelo wax ku soo kordhiyo yididiiladooda bedelo ee aanu ka fekerin cunto keliya taas waa mid waa runtii inuu qofku ka xoroobo in waxyaabaha niyad jabinaya iyo fikrikiisa in lala wadaago waxa kaloo ka mida waxyaabaha keena quusashada jahliga ibnu qayim wuxuu leeyahay dunuubta waaweyn waxa ka mida quusashadana waxyaabaha keena waxa ugu muhiimsan waa jahliga qofku waa inuu jahliga ka xoroobo waana inaanu ku raalli noqon qof walbaaba isagoo aqoon leh ma dhasho laakiin aqoonta yar iyo weynba waa la bartaa 70 jiraa wax bartaa 60 jiraa wax bartaa ka yar baa wax bartaa ha ku kalsoonaan in aadan waxba baran jahliga waa in laga gudbaa waxyaabaha keenaya jahligu waa kuwa ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay waxa ka mid ah waxyaabaha keena quusashada inaad qof kale adigu isku cabirtid ama aad tiraadid sidaasay ahaan jirtay waxa laga yaabaa waaqicii ka jiray 100 sanadood ka hor deegaankan iyo sidii looga talinayay iyo sidii loo maamulayay maanta inaanay suurtagal ahayn in loo maamulo xilli dadku qabaa'ilu ahaa oo Soomaaliya aanay dawladi ka jirin iyo xilli dawlada ay jiraan maamulo ay jiraan la rabo in la jalan qaado waxba isbedelaya waxa tusaale aan soo qaadanayaa laba dhacdo mid waxa la yiraahdaa qoys tan yara ayaa waxay deganaayeen tuulo ku taala meel xeeb ah ilaahay wuxuu qadaray in ay isa soo gaadhaan oo nolosha tuulada isku soo gaadhaan kuwa hooyooyinku ay caruurteena ugu duceeyaan oo ah ayeeye gaadhay ilaah baa laga helaaye ayaankaaga ha ku waayo gabadh ayaa hooyadeed waxay ku tiri hooyo kalluunkii aabe keenay madaxa ka jar dabadeetana inoo bislay gabadhii waxay weydiisay hooyadeed waa maxay sababta kalluunka aan madaxa uga jaraya madaxa laftiisa miyaynaan u baahnayn hooyadeedna waxay ku tiri madaxa ka jar markii hadalkii la isku celceliyay hooyadii waxay tiri heere waxa tahay dadkii dambe oo waxba dhaga adayg baa laga soo taagaye aniga hooyadayba waxay oran jirtay hooyo kalluunka madaxa ka jar dabadeetana waan ka jari jiray markaasaan bislayn jiray sidii hooyaday igu oran jirtay yeel waxay tiri hooyada ay noo geey sababkay ku oran jirtay hooyadii baa loo tagay waa gabadhan ayeeyadeed waxay tiri allah aniga laftayda de hooyaday baa sida ay oran jirtayo sidii uu baa yeeli jiray adna hooyo sidaasaan ku yiri hooyada ay noo geey waa ayeeyadii labaad ayeeyadii baa loo tagay warkii baa loo sheegay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un oo wali kalluunka madaxa miyaad ka goysaan bay tiri anigu bay tiri digsi yar baan lahaa digsi yar oo kalluunka wada qaadayno ay ku sameeyeen idinku beeda digsuudu haween helin marka waxa dhici karta waxyaabo badan oo aynu hayeelada ka soo gaadhay ama sida loo dhaqmayo inay yihiin wax xilligoodii ku haboonaa laakiin adiga aan kugu haboonayn soma xilligaa uu ku haboonaa laakiin adiga kuguma haboona waxa kale oo saaxiibaday qaybtooda iga codsadeen sheeko kale oo isla habeen dhaweydaan sheegayo nin beeraley ah waa halka bay munaasab ku taayana nin beeraley ah ayaa laba hablood oo u dhalay midna wax ka guursaday nin beeraley ah midna waxa ka guursaday nin
dadkan sameeya weelasha dhoobada ah sida waxyaabahan dabqaadiyada xamariyada birkujooyinka waxyaabaha dhoobada laga sameeyo dabadeetana maalin maalmaha ka mid ayaa odaygii wuxuu aaday inuu gabdhihiisii soo booqdo dabadeetana wuxuu u tegey ninkii beeralayda ahaa waa soo dhoweeyeen isaga iyo xaaskiisii gabadhii markii uu waraystay waxa uu weydiiyey aabe ka waran xaaladiina waxay tiri xaaladayadu waa maasha Allah aad bay u fiican tahay markii odaygu waa beeralay beertaasuu beeraa markii roobku da'o abuurka iyo siidhku si fiican buu u soo baxaa maasha Allah noloshayadu waa xaasil laakiin dhibaato waxay ka taagan tahay haddii roob la waayo dalagayadu wuxuu ku tiirsan yahay waa biyaha cirku ku tiirsan yahayoo haddii roob la waayo xaaladayadu waa adkaata haddii abaari dhacdo ilaahay khayr ku siiyo waa ka tegey gabadhii kale u tegey waa soo dhoweeyeen iyana xaaladii buu gabadha ka waraystay ku sugnayd waxay tiri aabe maasha Allah ninkaygu waxyaabahaas uu sameeyaa waxyaabaha dhoobada laga sameeyo hagaajiyaa markii dhibaatada iyadu wax weeye markii roobabka ay aad u bataan wixiiba waa naga qoyaan oo waa naga burburaan wixiiba waa naga qoyaanoo waa naga burburaan odaygii gurigiisii buu ku noqday haweenaydiisii baa waraysatay ka waran gabdhaheennii wuxuu yidhi haddii roob doona alxamdulilaahi dheh haddii abaari dhacdana alxamdulilaahi dheh labadaasi waa laba gabdhood oo walaalaa oo isku xilli jooga laakiin midna roobkay ugu badisaa midna roob la'aantay ugu badisaa marka waxaan rabnaa adigu qof kale ha isku qiyaasin adigu hebel miihid ha isku qiyaasin qof kale xaalada laga soo gudbayna tajaarib ka qaado laakiin bal hubi in ay suurtagal tahay waxa kani adiga ma ku anfacayaan oo ma kugu habboon yihiin hadday xilligii aabbaha ku fiicnaayeen ama xilligii awoowaha ay ku fiicnaayeen marka laga hadlayo dhaxalka iyo caruurta ilaahay subxaanahu wa ta'aala way isagayna amray wabtalul yataama agoomaha hal ibtixaamo markii xoolaha loo dhiibayo haddii laga dareemo markaa inay yihiin dad hanuunay xoolahoodii ha loo dhiibo waxay culimmadu yidhaahdaan waxaa lagu ibtixaamayaa xoolaha sidii aabbahood ugu shaqayn jiray xirfadihii aabbahood ma horumariyeen waayo wax la rabaa qofkani shaqada halkii aabbihii geeyey inuu ka sii qaado laakiin inaadan ka soo qaadin meeshuu isagu ka bilaabay marka qodob muhiima weeye in qofku aanu isku dherarin cid kale ee uu ka fekero adiga maxaa kugu habboon xilligaaga maxaadse qaban kartaa maxaadse ku fiican tahay waayo dadka wax jira qofba wax buu ku fiican yahay waxa hebel hagaajin karo maadan hagaajin karin wuxuu hebel aanu hagaajin karinna inaad hagaajin karto ayaa dhici karta wax kaloo la rabaa in qofka lagu abuuro kalsooni iyo siqatu nafs inuu naftiisa ku kalsoonaado markii la waayo yani waxaan u jeedaa ay dhacdo kalsooni la'aan naftaada aad ku kalsoonaan weydo waxa dhacaysa quusasho sidaa darteed abubakar radiyallahu canhu ardaah markii dadkii ay nabigu dhintay oo ay sakada diideen wuxuu yidhi haddii ay ii diidaan hal dabar oo ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam siin jireen waa la dagaalamayaa wuxuu isu taagay in aanu u debcin una nuglaan dhibaatooyinka dhacay maanta wax laga yaabaa ummaddan nabigii baa ka dhintay calayhi salaatu wasalaam waa isagii cumar ku lahaa ma waxaad ahaanaysaa xilligii jaahiligana geesi islaamnimadana fulay baad ahaanaysaa maalintani waa maalintaydii buu yidhi marka ummaddaa waxaa ka dhintay nabigeedii calayhi salaatu wasalaam waxyigii baa go'ay musiibadii ugu darayd ee dunida ka dhacda baa dhacday laakiin laba niyad jabin abubakar baana tusaale fiican u noqday oo ilaahay ummaddan ku badbaadiyey innaga waxaa dhici karta maanta madaxweynaa tegaya mid aad rabtay baa la dooran waayayaa ummaddan baa xanaaqaysa khalaas haddii hebel soo bixi waayo waxba ma jiraan rajadeennu hebel kuma xidhnaa sideedaba waxyaabaha khaladkaa wax weeye in aadan rajadaada qof ku xidhin qofku waa dhiman karaa waa jiran karaa waxbuu qaban waayi karaa inaga waxaa la rabaa mabaadi inaan ka duulayno oo nahay dad mabaadi ku xidhan ee aan shakhsiyaad ku xidhnayn mar kasta soomaaliya hadda mar kasta oo la kala guulaysto qayb baa fullaacda qof baad u xanaaqaysaa sax maaha arrinkaasi inaga waxaan rabnaa fikirkeennii iyo wixii aan rabnay qofkani ma ku shaqaynayaa walow yuuba ahaan kii aan doonaynay waa waxyaabaha la rabo inuu qofku maaragtay uu ogaado
waxa la yiraahdaa badda kalluun badan soo daadisay dabadeetana markii kalluunkii dibadda u soo dhacay ayaa nin badda ag taagnaa wuxuu qabtay inuu hadba xabad kalluun oo nool badda ku tuuro wixii tabartiisa nin baa ku qayliyay wuxuu yiri war maxaad adigu ka tari karaysaa intaasoo kalluun oo dibadda yimi dabadeetana intuu mid qaaday buu yiri tanay wax u taraysaa ilaa inta haddaan badda ku celiyo waa noolaanaysaa saadarteed culimada fuqahadu waxay yiraahdaan inna al-maysura la yasqutu 'an al-ma'sur wixii aad qaban kartid kaaga dhici mayso wixii aadan qaban karin haddii dawlad Soomaaliya la waayo kaba soo qaad Soomaaliya ba ay dawlad yeelan weydo ma waxaad oranaysaa dawlad Soomaaliyeed bala waayo anigu waxba qaban maayo dawlad Soomaaliyeed mar haddaan jirin waxba qaban maayo maya waxaad qaban kartid baa la rabaa in la qabto